waa tahay daawadayaal waxaan maanta la joognaa fanaanadii hobalkii caan ka baxay Xamdi Cabdulaahi Xamdi Yar meeshaan joogno ma Hargeysa ma Muqdisho maanta waxa wada joognaa Garowe marka ugu horeysa ku soo dhawow Puntland marka xigta gaar ahaan Garowe aad ku sugan tahay bal ujeedkaaga safarka iyo socdaalka noo warbixi marka hore waan dhawahay aad u mahadsan tahay reer Garowe aad baan u salaamayaa shacabka xukuumadda dhalinyarta markasta joogan waxaan socdaalkaygu wuxuu ku u jeedaa in aniga dhalinyarta iyo Puntland magaalada aan showyo iyo safarkaygu saas u aadan yahay ma sha Allah horta marka hore waan ku faraxsanahay inaan imaado wakaas waa tahay safarkaaga lacweynta iyo la qaadashada waqtiga inta badan taageerayaashaada maxaad baas leedahay waad u siidaa oo aad ku madadaalin doontaa kale waxaan u sidaa farxad waxaan u sidaa heeso waxaan u sidaa Xamdi Yar oo timid magaalada marka waxaan leeyahay markaste soo dhawaada insha Allah inaan baashaana haduu Ilaahay ka dhigo oo de waxaan ku li magaalada aan kala xirano waa tahay Xamdi aad ba mahadsan tahay ma markii kugu horeysay Puntland hada gaar ahaan Garowe ha waa markii ugu horeysay ma laga yaabaa Garowe ka sokow inaad tagtid gobolada iyo degmooyinka kale ee Puntland of course waan tagayaa meel kasta waxa raba Soomaali ay joogto wala gobol haato miyi haato maxaa lahaa ha haato magaalooyin markaas waan ku faraxsanahay inaan ku wareego wadankeena ruuxda badan inta marka laga yimaado Xamdi Yar waxaad ka mid ahayd hobaladii aan ka baxay ka soo baxay Hargeysa Somaliland iyo Soomaaliya hadaladoodii ugu dambeeyay waxa qayb ka ah in lagu heshiiyay isku socodka fanaaniinta dhalinyarada sportska waxyaabaha la halmaala oo inta badan aan laga maarmin socodkooda iyo inay magaalooyinka kale Soomaaliya booqdaan arintaas ee warta kulay aniga waxaan u arkaa bahda artiska kulay iyagu way madax banaan yihiin waxaan ku faraxsanahay markasta inay wada hadalada ay ka dhex baxaan xukuumadda macnaheeda dawladda ay ka dhex baxaan kooxda artiska ciyaartooyga fanaaniinta wariyaasha markaas waxa la waan ku faraxsanahay markasta in muddo lagu arag Hargeysa oo waad ka maqnayd maxaa la sidii kara loo sameyn karaa maqnaashaha Hargeysa oo Hargeysa aniga horta waa magaaladeedii waa wadankeygii waana magaalada ka soo jeedo markasta aniga maadaama oo aniga ka baxbaxoon magaalooyinka kala tago mooyaane kulay de wax dhib ma jiraan waraad safarka Garowe safar ku xiga laga yaabaa inaad gaartay Hargeysa ha waan gaaraya waana magaaladeedu waana tagaya markasta ugu dambeyn maxay tahay fariintaada ugu dambaysa aad u soo jeedinaysaa shacabka Soomaaliyeed Puntland iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed horta shacabka Soomaaliyeed markasta waxa leeyahay inay shacabka horta markasta is fahamaan oo shacabka is dhex galaan oo aqoonta la kordhiyo